asli dhaawacay ilaa hadda waxaan ku fikiri jiray yaa ku dhaawacay iyo ku dili sabab meeshii lagu beegsaday marka waa seexan waay marmar xitaa waxaa dhici jirtay aan kusoo kaco hay dilina walaalkii u geystay asigiina ma nool yaa asaga dhaween la dilay wala ma diyaale ninkii marka ninkan dhowr jeer aan arkay waa iska hor imaanay asii rag badan dhowr jeer aan arkay laakiin markii la dilay mid way kortaagnaa midna banaankaas joogay ninkan haduusna ahayn qof xabad u dhuftay wax waa ka warhayay banaankaas joogay marka telefoon ani ma ka hadlaynin oo dawladda ay soo socdaan ama nimankii hadday buuxooyin ma dhihinin xil baan noqon lahaa xigaalkan jeclaa maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay maxaad ii xabaashay maxaad ii xujaysay adaa dad ii xigee maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay xigaal baan ku ahaa maxaad ii xasiday xidigahan rabay maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابا دمتنا سلامتي مركز أدوكا كجوتين وأرمهنا أسد عبد الله هذه سيبدا جرى وفلينو أدنى قد كان دقناتا وكسو قالنا خيرا دنا موقت ودريو كرتين وحامانتا سديت سنة كدب نسو قارتي إن لقبتي دad kamid ah dadka asad dhibaatay ama u sabab noqday inuu maanta kursi ku socdo oo halkan maanta intuu fadhiyo oo lugihiisa maaragtay uu kula ayaa ilaa hadda insha Allah mar dhow ka wadana rajeynayna marabina ku sii dheeraado asadna wuu hadli doonaa Cabdullahna wuu hadli doonaa waxaa TV-ga qaranka ka daawanay mid kamid ah dhalinyartii lugta ku lahaa dhibaatada ama waxyeelada asad loo geystay taariikhdan xabadka ku qoran Fernandes 27 Agoosto 2022 oo laga joogo ku dhawaad 8 sano iska dhawaato 7 sano iyo bilooyin badan si kasta aataba marabina ku sii dheeraado marka insha Allah Asad Cabdullahi waa hadlaanigana dareenkooda maanta maaragtay firnana waxaa inta ku daawan doonaa muuqaal yar oo ku saabsan mid kamid ah dadka asad dhibaateeyay oo hadli doono isaga markaa xaaladda si wuxuu u sheegay anagana maaragtay si oo dareenkan uu ahaa inkastoo Asad Cabdullahi iga xog ogaal badan yihiin yani arimahaas sababtoo ah markaas waddanka ma joogin marka insha Allah waxaan daawan doonaa wareysi oo lala yeeshay qof kamid ah dadka asad dhibaateeyay Cabdullahi marka horta salaamantiin asxaabteena maanta waxa waa 8 sano kadib waxa soo ifbaxay oo hadda saacada ka hor aan ka fiirsanay TV-ga qof sheegtay inuu lug ku lahaa dilka asad loo geystay si bareed ah uma sheegin asadna asad ma toogan laakiin wuxuu sheegay ninka toogtay asad ay groupkiisa kamid ahaayeen marka ani ahaan 8 sano ka hor maanta inaan ogaado qofka walaalkay dhibaateeyay waxay ii tahay muhiimad gaar ah marka asadan u diinaa wixii hadala horta waa idin salaamay asxaabteena familkeena kulligeena waa idin salaamay kulligii waxa waaye maalintaas ay had camal ay tahay maalin xasuus ku jiro waaye maalin oo taas ila mid ay camal waaye because maalintaas wixii ka dambeeyay ma seexan ma nasan waxaa ku fikiri jiray yaa ku dilay waxaa ku fikiri jiray sababta lagu dilay ugu dambeyn maanta ogaaday alxamdulillah qofka i dilay iyo sababta la i dilabo maanta ogaaday xaqa uu soo baxaa maanta ma soo baxay waxaa maad gaar leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo xaqaasi bixiyay oo ina ogaado iyo dawladda Soomaaliya kulay video-ga waxa la soo deeyaawo asoo ka hadlayo asoo ka sheekeynayo marka arkay waan naxibane xaaladdiisa ahayd ma ogeenin waa ilmeynaa maanta dhan marka waa fiirsan waaye marka armeeni Cabdullahi waxay dhaheen video-ga la wadaag asxaabtaada si anagana u fiirsano wixii warbixin rasmi ah oo inka asad dilay waxba ku ogaa markii si maraybo way iscilin waane video-ga nala fiirsada asadna baan video hawshii ugu horeysay kooxdan ulka xasa kamid aha ay markoo ka qabtaan waxa kamid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqeynaya Xaajow bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay Maxamed Ilka Xase in dilkaasi uu geystay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen أسد أنا شخصيا أقانو وها يعني أنا في عنو وها دولة المشركين وحبهم وسنها ninkan wuxuu afkiisa ku cadeeyay in asad uu dawladda u shaqeynaynin oo nin fiican ahaay horta asiga ku marxaati furay qof walba anaga yaqaanana waxaan nahay uu ogyahay bileed روح جوجي فوتوغاس وسك جوجي فاميل اهانا يعني وادد aad loo yaqaan footooda iyo sawirada dadkaas xilligaas gobolka dhan waa laga yaqaan sawirka dugsiga shahaadada xataa isaga yaqaan sawir shahaada Allah sawirto sababtaas Allah xaaladii ma ogin laakiin
waxaa jirto ardayda gobolka dhan in aan sawiro xilliga sana dugsiyeedka xitaa kuwa celish biyaha ilaa iyo adig gobolka anaa sawiri jirtay saro waxaa laga yaabaa inuu ka mid ahaa laakiin ma aqoonsan karo waqtina waa kusoo wareegatay marka as-aan mujiisa mataqaana horba aragti horta wallaahi waa kanaxsanaasi laakiin qof igu cusub maaha banaankan joogay oo meeshii isaga stationary hortiisa munashibi meel lahaa ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyinka wax lagu qaban jiray anuu xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo boodbooda la dhahi doono aan meesha taaganaya asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraa nimankan wada carareen gebigooda wallahi fulay waay odahay ninka boodbooda ah walaalkayga dilay waxawaaye qofka gacanka xaq daran disho oo alle tala saarto waxa waaye xaqa mar buu soo baxaa walaalkaygu dhib u geystay asigiina ma nool yaa asaa dhawey nin boodbooda laaya dilay marka ninkan iyo boodboodaha waxbay isla ogaayeen ninka dhintay asad dhaawac u geystay ninkan waxbay isla ogaayeen videona sii wadays عبار مركب عبار إذا أنا قدام صوت أرد مش بكلام ماني نكيو جيفا أرجعني هنا كان بس كل حريصنا بس نكيو صوتني حد عسان ولا هاي نكو له تلفون أسوق هذا تلفون كسوة كذا أنا مش أسد آدم كودي إنت عن رأسه محل مخلصي مركب لأنه كان هم دعوة سي واحد دعين ضد مرة ما دام أصحابه شيء والله إن كان ستيل رتب شيء أحبهم آخرين because مركني دلائي mid way kortaagnaa midna baraankas joogi ninkaan haduusna ahayn qofka xabadii u dhuftay wax waa ka warhayay banaankas joogi marka teleefon anay muka hadleynin oo dowladda ay soo socdaan ama nimankii hadday buxooyihiin ma dhihinin teleefon hal maraan ku hadle halkaas marna waxay ahayd markaan guriga joogay ama guriga soo baxay waxaan la hadlayay Cabdullaahi hadday ag fadhiyo oo aan la tashanayay maadaama magaalada kala wareegi jirtay dukaankeen la xiraayo oo lacag u jirto marka maxaan sameeyaa ma lacagtaas kala soo baxan soo ku dhaafaa hadii waxa kala tashanayne oo ku saabsan xoolaha meesha noo yaala lacagta meesha maadaama kala wareegi uu jiray waxa laga yaabaa oo in la soo fargashto afaaraha la baaro hadii waxa dhici karo markaas telefoon ku hadlayay bis ninkaan markaas intee joogtay ana ilaamis xaafadda joogay gurigeyga joogay markaas soo baxay because magaalada inay khasneeda ogaay telefoon ma bulu hadli karin marka bilay marka okay sug kuwa gudaha ku soo galeen meeqa ahayn aad sheegayso hal qof gudaha soo galay kan kale banaankaas joogay dadkaas celinay jugad ma xirnaa ma farnaa wallahi si aad ma xasuusto okay bilay aad markaas ku jiro dukaan kaligeyga okay أنا مش تاجر وده يعني ما كوسو قلنا وحو قدبنا. أسد هذا وده هاي أنا كليجي عايد كان كليجي بجرا ده أسد عايش مكان بيجينا من كان محله يا وقت كارنا يعني كاستلاف وهلا مرك إنه واحد خرنا عيو ماشي قاعدة سيستح أنا كان وراسي وما بحمل بليل أسد مركز هو ولا أنا وأركي أنا بارا لا يسوي. ستوب أنت يا بوزيد. هذا عليه. ninkaan hadalkiisa inuu isburinayo dhageystaan إذا أنا قدام صوت أرد مش بكلام ماني نكيو جيفا أرجعني هنا كان بس كل حريصنا بس نكيو صوتني حد عسان ولا هاي نكو له تلفون أسوق هذا تلفون كسوة كذا أنا مش تاجر وده يعني ما كوسو قلنا وحو قدبنا. أسد مركز هو ولا أنا وأركي أنا بارا لا يسوي. ninkaan wuxuu dhahay asad ani markaas waa arkay uu noolaa baralays uu ahaa asad markaas dhakhtar lama geenin wax lama geenin barti lagu dilo jiifaa suu ku ogaaday asad inuu baralays noqday baralays macnaheedu qof inta xibnaha hoos beelal baa marka suu ku ogaaday idinkana dad wax gartaa tihiin intaas yar ma waa isburisay كبرينا صعب baleed wuu noolaa yani meed ahaan ugu soo tagay ninka laakiin ma ka soo noolaa been maaha meed ahaan bay iga tageen waxay dhahayeen waa dhintay naga waday laba khaliis maadan ka maqlay ahaan okay asad marka dadka ma sukaan yaqaanaan qaarkood si kan saaxiib waa una footada iyo صاحبتي xaalad ku dhac
waxaan saaxiibeen ninkaan iyo asad saaxiibo ma ahayn waxaa markhaati ah inay asad ninkaan saaxiibo ahayn waxaa markhaati ah dadka deegaanka ah ee meesha nala degnaa ama dadka asxaabteena ahay noo dhawaa dadkaasaa fahmi karo ninkaan iyo asad inay waxba ka dhexeynin isku baabna ahayn baleegays ما بقدر سنين أنا هذا وسيسان فرق يسوقين أنا كان كيستاجي أدب فرق له سفر يسوقين سفر يسوقين له ده هذا الورد بحنتان أنا جديد سنة كهر مو أجين أسد قف كده كان أجيست ما أنت نقول ده سي أي سنة فرق يسوقين أنا مو أجين مرات سن قف واحد دلي أما دعوتني كان مكب حنن كان إله أنت لا صارني marka maanta waxa cadaatay ninkii inuu meel soo fadhiisto oo afkiisa ka cadeeyo wax walba uu sameeyay رمينا والله hortaan hadda waa wareersanaaba yani hadal badan oo aan dhihi karo ma jirto tan kale ninka hadda uu dhahay badboodaha waxaas uu geystay uu dhahayo wallahi qof anaga horta aan kasi karno in kale inuu yahay anaga ma ogni qof dhinta waa dowladda yani uu dhintay uu tagay laakiin magacani bedeshteen dadka magac badan isticmaalay wala gaabana qofkaan kale horta waligeed ma arkin idinka taqaani bad aragteen asad wuxuu dhahay bana wajiis amnigu cusub oo dhacdo maragtay hore أنا ninkaan dhowr jeer aan arkay waa iska hor imaanay asi rag badan dhowr jeer aan arkay laakiin alaa aclam ma ogeyn anaga qofka asad dilay sababtana la dilay meesha waxna soo gaareen wallahi cidna ma ogeyn intaanaba waa is wareysanay waa isku noqonay waxaana soo baxday sabab la'aan yar ka hadlay hadalkiisa aad iyo aad u dhageystay waxyaabaha uu sheegay dhan waxaa ka jira wax yar qolkiiba 20 sax ka ah marka 80 kale ninkaas si sax ah uma hadlin macna shaki ah asad telefoon ku hadlay sidaas u dhahay asad nina si fiican oo aqaan way walaalkii way ana aqaan maalintaasna aanu ila hadlay waxyaabo badan waa ka hadalnay marka wax ku saabsan arrimo siyaasadda ama arrimo dawladda anaga ma ku jirin sidoo asad afkiis ka cadeeyay أسد أنا إني شخصيا أقانو أها يعني من في عنو أها دولة مشكلين وحبا موسنهن asad nin oo xiligaas hadda muuqaalkiisa qofkii arka asad wuxuu maleynaa qof weyn asad xiligaas sawirada iyo muuqaalka videoga TV-ga ay soo qaateen ama ninka barnaamijka sameynayay videoyaasha uu soo qaatay waa aragteen asad aad iyo aad u yaraay nin maanta siyaasad ku jira ma ahayn nin dawlad u shaqeeya ma ahayn nin dhan kale ka fikiraya ma ahayn waan la yaabay videogaas aad aan ugu soo noqday 10 jeer oo fiirsaday والله horta wax walba alxamdulillah waaye xaqeena waa dilaacay marka alxamdulillah aan dhahan waaye marka waxaan videoga u talgalnay iyo inaan isoo hor istaagno maadaama familkeentiin inaan idin wadaagno waxa maanta soo kordhay oo ah inuu xaq dilaacay soo hor idinku sheegay bo asli dhaawacay ilaa hadda waxaan ku fikiri jiray yaa ku dhaawacay yaa ku dili sabab meeshii lagu beegsaday marka waa seexan waaye marmar xitaa waxaa dhici jirtay aan kusoo kaco hay dilina marka waxyaabo xanuun badan iyo waxaan jirtay laakiin hadda waxaan rajeynayaa inaan ka bogsan doono insha allah kulli ma sii hadli karo waxaan rabaa halkan inaan u mahadceliyo dhammaan asxaabta markaas ilaa hadda ila xiriiri jirtay isla socon jirtay iyo waxaan kaloo halkan oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya oo iyadana kaalin weyn ka geysatay soo qabashada ninkan maadaama uu ku lug lahaa dilkeyga asna uu sheegay saaxiibkiisa inuu idilay laakiin iyagana isla mid yihiin hadduu qofku wax ka ogaa asigana wuxuu la mid yahay qofkii dil marka kulli hadal kale ma geli karo Armani Cabdullaahi insha Allah kulli idinka la waay أنا واحد هذا الكلام داير من جيل كرنو ودريني سا وقع مرور كله وقع إنه لا ده ما أنت إنه وقعنو إبكي أسد لو بيستي خوفك كدم بيه أرماني هنا كده والله اللي مرنا إن شاء الله ضد بدن دبات والو بيستي ضد بدن يعني والو بحيلية قار بنتين قارنون أسد الحمد لله ولود البلد ولود لها لكن إنكستو ما أنتو حقد يدو فرح سنة إنها هنا حق سابسن يعني qaabka wax u dhacay inkastoo xog dhameystir ma aan helin haddana inta hadda ogaanay yani wax weyn oo soo kabaysa inkastoo xanuunkeeda xusuusteeda ay gaar noogu tahay marka insha Allah anagana waxaan jeclaysan muuqaalkan idin soo wadaagno maadaama maaragtay muuqaalkan TV laga daayay anagana waxaa sida asxaabteena qaar laga yaabaa TV ku xirnaan oo anagana ugu xiran si anagana markaas dareenkan idin soo wadaagno saas darteed muuqaalkan soo qaadanay insha Allah dhamaan waxaan rajaynayaa inta xanuunsan inta dhibaato haysato dhamaan inuu caafimaad siiyo asad uu kamid yahay
marka muuqaalkan intaas ugu talgalnay si kasta aad tawo kuma sitin daawasho muuqaalka daawateen dhammaantiin waxaan rajaynaynaa insha Allah khayr caafimaad bashbash barwaaqo farxad iyo reereen aan ku dheeraada suuban waxaynu balanaa insha Allah muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah waqtiga aad ka faa'iidayso